بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والمرتيات كسو baxay shirkii 3 cashaha ee ka socday magaalada Garowe ay isugu yimaadeen dad aad u badan oo ay kamid yihiin maayirada deegaamada degmooyinka xeebaha shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga shaqaalaha amniga shaqaalaha cadaaladda ee heer degmo ee xeebaha iyo ganacsatada iyo iskaashatooyinka ka shaqeeya arrimaha kalluumaysiga 26 bisha sideedaad 2024 shirka maamul baahinta iyo kobcinta wax soo saarka kalluumaysiga ee degmooyinka xeebaha ah oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha kala ah kalluumaysiga maaliyadda arrimaha gudaha cadaaladda amniga Puntland ayaa ka qabsoomay magaalada Garowe intii u dhaxaysay 24 bisha ilaa 26 bisha sideedaad 2024 waxa looga wada hadlay iskaashiga hay'adaha dawladda ee maamul daadejinta iyo kor u qaadista wax soo saarka degmooyinka xeebaha ku yaala shirka ayaa isku raacay qodobadan soo socda qodobka koowaad maamul wanaaga shirku waxa uu xoojinayaa maamul wanaaga iyo wada shaqaynta dhammaan hay'adaha dawliga ah ee ka howlgala degmooyinka xeebaha ku yaala shirku waxa uu dhiirigelinayaa maamul daadejinta adeegyada degmooyinka xeebaha dhaca si nidaamka dawliga ah u gaaro bulshada ku nool deegaanada xeebaha Puntland iyaga oo aan meel kale u safrin sida garsoorka booliiska caafimaadka waxbarashada biyaha iyo dhammaan adeegyada kale ee aasaasiga u ah bulshada waxa la isku waafaqay in shirkaani uu noqdo mid sanadle ah si looga arinsado arrimaha hortabinta u leh iyo daraasaynta wixii ka qabsoomay xalinta caqabadaha ka hor yimid go'aamadii shirka hore ka soo baxay shirku waxa uu xoojinayaa in saraakiisha idman ee hay'adaha kala duwan ee dawladda u jooga heer degmo ay la shaqeeyaan maamulka heer degmo si uu qabo heerka maamulka dawladaha hoose iyo gobolada qodobka shirku waxa uu xoojinayaa in saraakiisha idman ee hay'adaha kala duwan ee dawladda ay la shaqeeyaan maamulka heer degmo sida uu qabo heerka maamulka dawladaha hoose iyo gobolada lagu maamulo shirku waxa uu isku raacay in 6 bilood mar kormeer lagu sameeyo habsami u socodka shaqooyinka ka socda degmooyinka xeebaha shirku waxa uu isku raacay wixii khuseeya badgalka khayraadka badda looga dambeeyo saraakiisha idman ee wasaaradda kalluumaysiga shirku waxa uu adkeynayaa in maamulka heer degmo ilaaliyaan xilna iska saaraan hantida dawladda ee taalada heer degmo qodobka labaad waa kor u qaadista dakhliga xeebaha shirku wuxuu markii uu falanqeeyay dakhliga luma waxa uu adoorosay hadii la xalliyo caqabadaha wada shaqayn la'aaneed ee ka jirta xeebaha in sanadka 2024 dakhligu uu kor u kici karo 15% marka la barbar dhigo 2023 shirku waxa uu isla meel dhigay in degmooyinka dakhliga badan uga soo xaroodo dawladda in laga hirgeliyo bangiga dawladda si lacagta loogu kaydiyo shirku waxa uu adkeeyay in la kiciyo ilaha dakhli ee dawladaha hoose ee degmooyinka ku yaala xeebaha si looga faa'iideysto shirku waxa uu go'aamiyay in dhammaan doonyaha iyo maraakiibta ay yeeshaan wakiilo wadani ah oo u diiwaan gashan kuwaas oo mas'uul ka noqonaya arrimaha la xiriira gaadiidka kalluumaysiga ee shisheeye wakiilna uusan ka noqon karin qof dawladda u shaqeeya shirku waxa uu isku raacay in degmooyinka xeebaha dakhli celin lagu sameeyo markay dakhliga soo saaraan 5% loo sameeyo lana mariyo hay'adaha dawladda si looga dhigo heer shirku waxa uu soo jeedinayaa in miisaaniyadaha heer degmo ay ka dhex muuqato qorshayaasha kala duwan ee hay'adaha dawladda si loo xoojiyo maamul wanaaga qodobka saddexaad la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah shirku waxa uu masiibo qaran ku tilmaamay ama u aqoonsaday kalluumaysiga sharci darrada ah waxa uu iclaamiyay dagaal wadareed lagu joojinayo shirku waxa uu ugu baaqayaa hay'adaha ay khusayso ee dawladda iyo shacabka Puntland in cid walba doorkeeda ka qaadato ka hortagida iyo joojinta kalluumaysiga sharci darrada ah isla markaana la qaado ololaha ilaalinta khayraadka badda shirku waxa uu iclaamiyay in ciddii lagu qabto ku lug lahaanshaha kalluumaysi sharci darro ah lala tiigsan doono shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah loona aqoonsan doono in ay khatar ku yihiin amniga dawladda Puntland isla markaana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan
shirku wuxuu iclaamiyay in la kaashado dawladaha aan saaxiibka nahay iyo hay'adaha caalamiga ah cid walba oo wax ka tari karta sidii looga hortagi lahaa la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah. shirku waxa uu isku raacay in dhammaan gaadiidka kalluumaysiga ee shisheeye marka ay soo galayaan biyaha Puntland soo goostaan warqadda badgalka ah ciddii aan wadanna loo aqoonsan doono inay ku lug leeyihiin kalluumaysi sharci darro ah. qodobka afraad maalgashiga khayraadka badda. shirku waxa uu ugu yaboohay ganacsatada dalka kuwa dibadda jooga maalgashiga khayraadka badda. wasaaradda kalluumaysiga iyo dhammaan hay'adaha kale ee dawladda ay khusayso waxay diyaar u yihiin fududeynta maalgashi kasta oo ay daneeyayaasha ka faa'iideysanaya khayraadka kalluumaysiga xeebaha Puntland in ay ku kaalmeeyaan una fududeeyaan adeegyada dawliga ah ee ay doonayaan. shirku waxa uu ugu baaqayaa daneeyayaasha iyo hay'adaha caalamiga ah in ay ka qayb qaataan horumarinta miisiga kalluumaysiga iyaga oo maraya hanaanka dawliga ah. qodobka shanaad tayeynta amniga xeebaha. shirku waxa uu isku raacay kor u qaadista iyo adkeynta amniga xeebaha iyada oo la tayeynayo ciidamada kala duwan iyo qalabkooda ee ka howlgala deegaamada xeebaha si ay uga hortagaan faldambiyeedyada ka dhaca xeebaha. qodobka lixaad maareynta noolaha badda ku nool iyo khataraha wajahaya. shirku waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay hab maamulka guud ee noocyada noolaha badda ee khatarta wajahaya iyagoo ogolaanshaha xogta dhabta ah ee ka jirta meelaha ay sida gaarka ugu gabaadsadaan sida aragoosatada qubada indhabuurka oo ka mid ah qaybaha kalluunka ee nabaad guuraya. shirku waxa uu isku raacay joojinta jilaabashada aragoosatada waqtiga ay isla meeldhigayaan xeeldharayaasha iyo cilmi baarayaasha badda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo saamiilayda ganacsatada lana xakamayn doono hab waafaqsan shuruucda iyo nidaamka. waxa uu shirku isku raacay in la xakameeyo habka khaldan ee loo kalluumaysto isticmaalka hoonuugta iyada oo lagu tababarayo hababka toolmoon ee aan waxyeelada u geysanayn nafta bini'aadanka iyo noolaha badda ku nool. qodobka toddobaad xoojinta hay'adaha garsoorka deegaanada xeebaha. shirku waxa uu isku raacay in la tayeeyo lana furo maxkamadaha iyo saldhigyada booliis ee degmooyinka xeebaha iyada oo bulshada loogu wacyigelinayo u gardhiibashada maxkamadaha dawliga ah. ugu dambeyn iyo gabagabayn qodobka sideedaad waa mahadcelin. shirku waxa uu mahadcelinayaa agaasimayaasha guud iyo saraakiisha kale ee kala duwan ee ka shaqeeyay shirkan bilow ilaa dhammaad kuwaasoo ka kala socday wasaaradaha maaliyadda kalluumaysiga arrimaha gudaha amniga cadaaladda ee shirkan qabtay. waxaan leenahay wabilaahi tawfiiq fulin wacan. shirka waxaa wada saxiixay 5 wasaaradood oo ka mid tahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha. waa mahadsantiin.